Ciidamada dowladda federaalk Soomaaliya ayaa guul weyn ka sheegtay dagaal culus oo ay saaka Al-shabaab ku soo qaadeen deegaanka Wargaadhi ee gobolka Shabeellaha Dhexe. Weerarka oo ku bilowday qaraxyo isla markaana uu xoogay dagaal toos ah ayaa waxaa jab culus lagu gaarsiiyay xubnihii weerarka soo qaaday, ka gadaal markii ay jilibka u aasteen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa dadka deegaanka. Ammaanduulaha guutada 18aad ee Kumaandooska Goor Maxamuud Ibraahim oo dagaalka wax ka hogaaminayay ayaa muuqaal ka soo duubay jiidda hore ee dagaalka, gaar ahaan isaga oo taagan aargada Wargaadhi. Waxa uuna sheegay inuu cashir u dhigay Al-shabaabkii ku soo weeraray deegaankaasi, ayna dib ugu celiyeen deegaanadii ay ka soo weerareen. Dadka Soomaaliyeed waxaan u sheegaynaa beenta iyo barobagandada ha laga daayo. Al-shabaab meeshan way soo weerareen, laakiinse wax guul ah oo ay qaadeen ma jirto. Iyaga oo indho xunxun ayay meesha isaga tageen. Xaaladda ayaa hadda ah mid deggan, waxaana si buuxda Wargaadhi oo ah taliska labaad ee ugu weyn Shabeellaha Dhexe kadib qabsashadii Aadan Yabaal, gacanta ku haya ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee xaq u dirirka ah.